waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan dhammaantiin idin salaamay asxaabteyda. Insha Allah maanta waxaan isku dayi doonaa inaan idinla sheer gareeyo qaabka numberska moobilka kugu jira aad sim cardka kugu save garaysnaa aad ugu wareejinayso dhinacaasi Gmail-ka si aanay mar dambe kaaga bixin. Fideogii kan horreeyay waxa ugu saabsanaa qaabka loogu save garaysto Gmail-kaaga nambarada Gmail-kaaga, laakiin wuxuu ku saabsanaan doonaa nambaro hore kugu save garaysnaa sim cardka oo doonaysa inaad Gmail-ka ku wareejiso si aanay mar dambe kaaga bixin. Okay, insha Allah step baynu iskula socon doonaa. Marka koowaad waxaad tegaysaa barta ay ku qoran tahay contacts-ka moobilkaaga ayaa tegaysaa oo halkaas contacts aad ku dhufatay. Kadibna waxaad soo furi doontaa saddexda dhibcood ee halkaas ku qoran. Kadibna waxaad kasii tegi doontaa manage contacts ayaad kasii tegi doontaa. Markaas kasii tagto waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay import or export contacts to your phone or export them to another location. Okay, waxaan ku dhuftay halkaa. Markaan ku dhuftay waxa aan doonayaa hadda inaan nambaro igu jiray sim cardkayga aan ugu wareejiyo Gmail-ka. Marka waxaan taabanayaa import ku dhufto. Waxaan taabanayaa in hadda internal storage ma jiro, nambarada sim card bay ku jiraan. Waxaad ku dhufanaysaa sim1 halka ay ku qoran tahay sim card. Markaan ku dhuftay aniga imika numbers iguma jiraan sim cardkayga Gmail-ka u save garaysan. Saa daraadeed labada nambar waxaan uga dhigay tusaale ahaan marka nambarkaas saas ugu dhuftay. Haddii nambaro badan nambar taayir all ku qoran waad ku dhufanaysaa and then dhan baad ku dhufanaysaa. Marka haddaan tiraahdo okay Gmail-kaaga bartaas ugu qoray waa labada Gmail baan leeyahay. Kolba kan jecel waan doonaa inaan ku soo dhufto. Okay, Google baan doonayaa boonada laba gmail.com Gmail-kayga sii dhuftay import baan ku dhufanaya to contacts xagga saraadkiisa to contacts imported. shaqadan saas ugu dhawaatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.